salaan ka gadaal sida boorka ku xusan waxaan taageero u nahay oo har iyo habeen aan garab taaganahay ciidamadeena qalabka sida qayb kasto ay yihiin waxaan u duceynaynaa shuhadada ku dhimatay oo maalin kastana ku dhinta ee furumaha jooga ayaan u duceynaynaa hadday noqon lahaayeen ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan iyo hadday noqon lahaayeen ciidamada difaaca shacbiga ama macawisleyda ee furumaha ku jiro iyagana la diriraya khawaarijta intaa kadib runtii kuma filno garab istaageenna mid afka laga dhaha bis kuma filno laakiin waxaa waajib ah inaan furumaha ugu tagno ciidankeena dhiirigelinno dhankeenna qoryaha ka qaadano dhankeenna aan dagaalka ka galno taas ayaa muhiimad gooni ah leh khawaarij ciday dhaafaysa male ciday naxariis u haysa male qabiil ay gooni u tahay ama ay u leedahay ma lahan waa cadow Soomaaliyeed waa cadow ilbaxnimada ka soo horjeedo waa cadow u baahan si siman in loola diriro u baahan waaye runtii hal midna fikirkaba kuma jiro dadka aaminsan amniga Muqdisho qalqal galay waa fikir xaq jir ah oo xaq jirnimada la mid ah waaye amniga Muqdisho iyo amniga dalkeena iyo jiritaankeena marnaba ma ahan wax gorgortana gali kara ma ahan horaa loo difaacday waa la difaaca doonaa hadda la difaacanaya marka taasna dadka dhagaha shacbiga ku shubo waxa leenahay ilaahay ha idinka kaalo wax kale slogan kale iyo wax kale oo aad wax meel la dhigi kartaan la imaada Soomaaliya way jirtay way jiri doontaa way jiraysaa haddayna jirtaa maalin maanta aan ka strongsannahay oo aan ka xoog badannahay oo aan ka caqli badannahay oo aan ka quwad badannahay maxaa la jiro ma jirto maalin kastana waxa noo siyaadayo quwad iyo adkaysi ayaa noo siyaadayo marka taasna in loo sheego fariimahaas loo mariyo kuwa ama facebookyada ku qora ama meelaha la wareego taas in hawada loo mariyo waxa inta ay soo haray wasaaradda wasiirka ayaa afkeeda ku hadli doono oo directionka iyo waxaan rabno noo sheegi doono isagaana ku mahadsan oo fikirkan iska leh in maanta aan halkan isugu imaano aan taageerno iska leh waxaana keenayo umleenayo wasaaradda badan oo dad shacab ay maamulaana jirtee waxa sharaf noo ahaa wasiir amniga wax ka yaqaan oo amni ah inuu maanta wasiir noo yahay taas sharaf noo ah annaga oo dhanna waxaa la rabaa fikirkaas intaan qaadano aan u fikirno si amni ah dalkan maxaa la dhihi jiray sidaan wax ugu tari lahayn oo ciidamadeena u garab istaagi lahayn haday noqon lahayd dhaqaalo haday noqon lahayd dhiig loo bixiyo haday noqon lahayd in dhufaysada la galo loo raaco furimaha loo raaco jeynta wasiirkan ka rabnaa laakiin qof kasta oo wasaaradda ka tirsan waxaan rajaynaynaa inuu diyaar garoobo inuu difaacdo dalkiisa inuu afka ku difaaco inuu maal ku difaaco shilimaanta yar oo nala siiyo aan mishaarka u qaadano maxaa la jiray sidaan ugu garab istaagi lahayn ciidankeena aan ku fikirno dhan kasta oo ciidanka iyo mataqaanaa cidda mas'uulka ka ahba maxaa la jiray lagu garab istaagi karo waa inaan u diyaar garoonaa qaabkan ugu garab istaagi lahayn ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda ambassador Axmed Macalin Fiqi oo fikirkan iska leh runtiina muujiyay garab istaaga rasmiga ee loo baahan yahay muujiyay